جيجان بني والله القمر هذا والله نيجي ندبس سمحة سمية يا محاسرة والله يا والله الواحد شرى هذا fadeexad la yaab leh kadib markii fanaanka lagu magacaabo qamar suudaani uu gabar reer hargeysa ah uur u yeelay kadibna uu ku inkiray gabadhaasi. Fanaankan oo lagu magacaabo qamar suudaani islamarkaana ka mid ah kooxda xidigaha geeska ayaa si aad ugu caanbaxay baacsiga gabdhaha iyo sidoo kale inuu gabdho badan uur u yeelay una ku inkiray. balse inta aan u gudagelin halkani daawadayaal waa Masaal Media, fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambaleelkana ha iska hilmaamin si aad ula socoto xogihii ugu dambeeyay aan baahino una noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadeena. fadeexadan soo shaac baxday ayaa midii la yaab ka lahayd ee la yaabay islamarkaana dadka qamar suudaani yaqaana ama dadka reer hargeysa ay si aad u la yaaban yihiin. waxaana hadda wararku sheegayaan inuu fanaan qamar suudaani iskaga cararay guud ahaan magaalada hargeysa islamarkaana uu joogo hadda magaalada Boorame oo halkaas ku dhuumaaleysanayo. ila xog ogaal oo la xiriirtay Masaal Media ayaa sheegay in qamar suudaani uu hadda ku sugan yahay magaalada Boorame islamarkaana laamaha booliisku ay baadi goobayaan. qamar suudaani ayaa gabadhan uur ugu yeelay magaalada Hargeysa islamarkaana uga socdaalay magaalada Jigjiga ee dhulka Soomaalida islamarkaana ka soo wacay qadka telefoonka, waxaana gabadhaasi ay ka duubtay codkaasi isagoo oo sidoo kale sheegay arinta la yaab kalena ay noqotay in qamar suudaani uu sheegay inuusan marnaba ahaynba qof wax dhala islamarkaana uu yahay madhaleys aan waxba dhali karin. waa sida uu sheegay isagu. Masaal Media ayaa sidoo kale la xiriirtay gabadhaasi balse way noo suuragali weysay inay nooga jawaabto weydiimo badan oo aan weydiinay iyo sida ay wax u dhaceen iyo hadda sida qamar suudaani xaaladiisu tahay iyo xaaladda caafimaad ee gabadhaasi. gabadhan ayaa sidoo kale qamar suudaani u sheegtay in xaaladeedu ay halis tahay kadib markii ay tagtay isbitaal islamarkaana laga helay uur 2 bilood ah. waa sida ay sheegtay gabadhaasi. qamar suudaani ayaa sidoo kale hadda wuxuu ka mid yahay kooxda xidigaha geeska islamarkaana ah koox dabad joog uu ka noqday hadeer, waxaana la sheegay inuu sidoo kale kooxdaasi kaga cararay magaalada Boorame ee dhulka Somaliland gaar ahaan gobolka Awdal, halkaas uu hadda ku dhuumaaleysanayo. qamar suudaani ayaan la ogeyn sababta ku qaaday inuu gabadhaasi uur u yeelo islamarkaana uu ka dhuunto sidoo kalena uu ku inkiro, balse arintan ayaa sidoo kale waxay noqotay mid lala yaabay oo fajac ku noqotay dadka ku sugan magaalada Hargeysa iyo guud ahaan kooxda xidigaha geeska oo uu ka mid yahay fanaankani. kooxda xidigaha geeska ayaa hadda u muuqda kuwo si aad iskaga fogeynaya arinta uu qamar suudaani ku kacay islamarkaana ku noqotay fadeexo. kooxda xidigaha geeska oo sidoo kale wax ka weydiinay arintan ayaa ka gaabsaday inay wax faahfaahin ka bixiyaan. fanaanka lagu magacaabo Mursal Muuse oo qadka telefoonka kula xiriirnay ayaa ka gaabsaday gabi ahaanba inuu wax faahfaahin ka bixiyo arintan islamarkaana ay dib ka soo sheegi doonaan siday arintan uga xun yihiin kooxda xidigaha geeska islamarkaana ay la hadli doonaan warbaahinta haddii ay u suura gasho. waa haddii ay yiraahdeen ay fadeexadani ay arintani ay noqoto mid ku cadaata fanaankaasi islamarkaana laga saari doono kooxda xidigaha geeska lana eryi doono usana ka mid ahaan doono qof noocan oo kale ah kooxda xidigaha geeska. waxaa sida noo sheegay Mursal Muuse oo qadka telefoonka kula xiriirnay ee magaalada Hargeysa. sidoo kale abwaanka ama gudoomiyaha guud ee kooxdan ayaa sidoo kale arintan ka gaabsaday inuu ka hadlo, waxaana laga yaabaa in arintani saameyn weyn ay ku dhex yeelato kooxda xidigaha geeska islamarkaana ay ku kala jabaan. fanaankan qamar suudaani ayaa la xasuustaa in horaantii bishii September lagu garaacay magaalada Hargeysa islamarkaana si xun loogu dilay magaaladaasi kadib markii la sheegay inuu si qaldan qof u aflagaadeeyay ama si qaldan uu gabar ula hadlay islamarkaana gabadhaasi wiil la socday uu garaacay asagoo u garaacay si xad dhaaf ah. waxaana la arkayay muuqaalo laga duubay xilligaasi qamar suudaani oo si xun loo garaacayo. waxaad hadda nala daawataan ama nala dhageysataan codkaas ee gabadhaasi ay ka duubtay qamar suudaani islamarkaana uu ku inkirayo inuusan wax caruuraba dhali karin asagoo uuna yahay madhaleys sidoo kalena ayuu leeyahay dib ayaan kaa soo wici doonaa. bal ila dhageysta codkan iyo sida qamar suudaani uu gabadhan ugu inkiray caruurta. sida la sheegana gabadhan waxaa uurka u yeelay qamar suudaani. waxaan mar walba idin soo gudbin doonaa codka qamar suudaani
ila dhegeysta waa kana codkii oo dhammaystiran iyo sida uu qamar suudaani gabadhan ugu inkiray caruurta. dhegeysti habboon. hani yorola oo anta oo fiican halkee joogtaa? booramaan joogaa wallaahi wallah dugsigan bani walaal qamar oo heedha ha walaal nigana dhibaasiisa maxaan sameeyaa? waa ya maxaa jira walaal maxaa ya walaal waxaa jira heedha ha ya walaal uur baan leeyahay ya uur baan leeyahay yadu leed walaal adiga anu maanaa dhalada ya maanaa dhalada walaal qamar suudaan iyo aminkii dhawad walaal waa qaldanay waan is soo baadha cadadu baan iska waayay warbaleeda badhiigu yidhi bal horta isbabsoora isku noqoano wan muday magaran wallaahi bilaahi walaalo aniga waraaqay gacanta ku haya kowde imaka jigjigan ada xagga Ethiopia socdaan bal isbabso wallaahi waan isubsaday walaalo ya waan isubsaday wallaahi una aan kula sahlo inay tabay hani yorola oo anta oo fiican halkee joogtaa? booramaan joogaa wallaahi wallah dugsigan bani walaal qamar oo heedha ha walaal nigana dhibaasiisa maxaan sameeyaa? waa ya maxaa jira walaal maxaa ya walaal waxaa jira heedha ha ya walaal uur baan leeyahay ya uur baan leeyahay yadu leed walaal adiga anu maanaa dhalada ya maanaa dhalada walaal qamar suudaan iyo aminkii dhawad walaal waa qaldanay waan is soo baadha cadadu baan iska waayay warbaleeda badhiigu yidhi bal horta isbabsoora isku noqoano wan muday magaran wallaahi bilaahi walaalo aniga waraaqay gacanta ku haya kowde imaka jigjigan ada xagga Ethiopia socdaan bal isbabso wallaahi waan isubsaday walaalo ya waan isubsaday wallaahi una aan kula sahlo inay tabay booramaan joogaa wallaahi wallah dugsigan bani walaal qamar oo heedha ha walaal nigana dhibaasiisa maxaan sameeyaa? waa ya maxaa jira walaal maxaa ya walaal waxaa jira heedha ha ya walaal uur baan leeyahay ya uur baan leeyahay yadu leed walaal adiga anu maanaa dhalada ya maanaa dhalada walaal qamar suudaan iyo aminkii dhawad walaal waa qaldanay waan is soo baadha cadadu baan iska waayay warbaleeda badhiigu yidhi bal horta isbabsoora isku noqoano wan muday magaran wallaahi bilaahi walaalo aniga waraaqay gacanta ku haya kowde imaka jigjigan ada xagga Ethiopia socdaan bal isbabso wallaahi waan isubsaday walaalo ya waan isubsaday wallaahi una waxaad hadda dhegeysateen codkii qamar suudaani oo ku inkiraya gabadhaasi caruurta inuusan isagu dhalin islamarkaana guud ahaantiisba yahay madhalays. masaal media waxay markasta idin soo gudbin doontaa xogta iyo xaqiiqda ku saleysan iyo warar ku saleysan run ah. waxaan idin soo gudbinaynana ma ahan wax been ah iyo wax propaganda ah. fadlan haddii aad mar kale ku cusub tahay channelka aadna ka mid tahay daawadaha barnaamijkan daawanaya, like-ta, commentiga iyo share-ta midna ha hilmaamin. subscribe-na saara calaamada gambalaalkana furo. halkaad nagala socoteen waa masaal media. waa ku mahadsantahay daawashadaada iyo weliba haddii aad like iyo comment iyo share ka bixisay.
waa bahda masaal media oo idin leh sidaas iyo nabadiino halkaad nagala socotiin oo masaal